marka market volume inuu hoos u dhaco halkaas marka suuqa wuxuu ka bixinayaa saaxiibayaal discount inuu suuqa dabcan waxa weeye oo correction sameeyo soo marka meesha waxa ka banaana saaxiibayaal fursad laga faa'iideysan normal saaxiibayaal sida waxa weeye shaqooyinka 95 ka ay dunidu dhamaysaa la socota bilaha July August iyo early September ama early September week labada week ama usbuuc ugu horeeya September suuqa wuxuu bixiyaa fursado maalgashi discount fiican buu bixiyaa taasoo keenaysa qof kasta inuu hoos ka soo raaco marka if you have been waiting for a good entry waa chance kaas ina waxa weeye normal ka faa'iideysan weeye hadda last week saa la socotay bitcoin waxa la geeyay 110 baa la geeyay inkastoo hadda 140 ee marayso halkaas baa runtii lagu celcelinaya soo marka waxa soo dhan saaxiibayaal wuxuu bixinaya mataqaana fursad saa la socotay saaxiibayaal bishii hore July BTC waxa sameeyay all time high 123 meelaas bay gaartay soo marka waa dareemi kartaa 123 iyo 110 farq u dhaxeeya wali mataqaana toomir gudahooda inuu meesha normal saaxiibayaal ku soo laabto markastan ogo saaxiibayaal bitcoin markay sameeyay all time high oo markay sameeysto dabcan correction bay sameeysaa oo hoos bay soo taabataa soo marka chartskan waxa way BTC iyo mataqaana waa inaan wax badan aan ka faa'iideysano weeye soo marka taariikhiyan xiliyadan waa xiliya ugu fiican normally waxa dhalinyarada xiliyaha November December January February oo suuqa meesha ugu sareyso oo mariyo bay badankood Soomaalida soo galaan laakiin hadda kale cid ka shaqeynaysa arkimayso oo ku dhahayso okay this is the right time of cryptocurrency investing ugu sameeyo hadii aad long term game ciyaar sidii hadii kala soo marka waxaan ku soo koobiyaa saddexdan bilood isha ku hay dabcan maantay muuqaalka aad daawanaysa macnaheedu ma ina maanta maalgashid suuqa fiiri laakiin saddex bilood suuqa discount bixiya discount adiga isku day marka suuqa marka guud iyo casaan yahay wali percent fiican u bixiyo 6 10 xawayto alif fanaka qaar oo kale ee bixiyaan BTC-na discount fiican marka bixisa ka faa'iideyso qodobkeen labaad saaxiibayaal waxa way buy the dip strategy dabcan marar badan baa aragteen baa u maleynaya dadku haya buy the dip dadku markay maqnaan saaxiibayaal buy the dip dad baa boqo oo suuqa waxa way runtii aad u baqaan suuqa markuu soo laabto casaan yahay dadka ku jira way baqaan laakiin dadka saaxiibayaal smart investorska strategy-gan buy the dip isticmaalaan suuqa markii la soo daato oo panic badan u yimaado oo runtii aad lagu baqo hadii aragtay saaxiibayaal suuqa gudud noqday oo soo daatay discount buu bixinayaa ka faa'iideyso sidoo kale saaxiibayaal dollar cost averaging DCA waxa la jira strategy hadii aad looga teeram game ciyaaraysidna taas isku day mustali inaad ka faa'iideyso maxay kula duwan saaxiibayaal DCA iyo buy the dip muuqaal gooni ba ka sameyn doona laakiin basically waxay kula duwan saaxiibayaal suuqa haduu wax soo daato printer yar haduu soo daato DCA baa la sameeyaa si markuu soo laabto hadhow waxa way meesha joogta meel kor ku buy the dip waa markuu suuqa discount weyn bixiyo weeye oo si fiican saaxiibayaal loo soo daadiyo oo correction weyn uu sameeyo macnaha waa good entry qofkii ka soo gali ka tusaale comba ku dhaafo kale buy the dip ka mustali fiican in laga soo DCN waa koon ahaysatay xogaa way soo daateen iyo joojin baa la dhahaa waa soo mataqaana DCA oo ku sameeysa xogaa lacag gelinaysa si mataqaana uu soo koonankii uu soo kaaga xumaan lacagta aad ku sameeyay DCA qofka sameeyana uu ka fiican qofka DCA sameeyay loo taram ahaan taas saaxiibayaal faa'iido badan secretary saaxiibayaal hadii aan fiirin historical pattern sanadii saaxiibayaal 2020 iyo 2020 August waxaan soo saaxiibayaal in suuqa xilliyada samarka aad loo daadiyay xitaa 23 saaxiibayaal iyo 24 ku dar haddana saaxiibayaal waxa suuqa xoog loo bamgareeyay October soo marka historical halka saaxiibayaal waxaan ka baranaynaa taariikhiyan in samarka suuqa saaxiibayaal oo aad u daato waxyaalaha keena saaxiibayaal waxa kamid dadka fasaxyo qaadanaya fasaxyaasha waxa kamid qofka faa'iido kala baxay suuqa ila qof mataqaana suuqa baar siisna Soomaal gashanay bilahan oo kala saddexdan bilood kuleelaha ah dadku waxa weeye waxa qaadanayaan lacag kala baxay suuqa taas ka marka suuqa inuu hoos u dhaco soo marka dadkaas lacagta la baxaya anaga waxaan laga rabaa hadii aad hore suuqa ugu jirto ama lacag ugu jirto right time suuqa la soo galo weeye xilligan oo kale xilliga lagu baxsan saaxiibayaal USDD-da iyo cash takinka bay dhahaan USDD is the secret hadii aad USDD fiicnaysid hadoo kala right time suuqa la soo galo intaana saaxiibayaal aan koonagis la fiilin waxaan rabaa inaad ka faa'iideystaan website-kan gelcrypto.com baa lahaa runtii mashruuca uu guuleystay maalinka saaxiibayaal article soo gelin maanta muuqaalka aduu waa 9 waa kana article-kan la soo gelin waa maxay web waa ku baranaysaa wax loo yaqaan sida cabasho waxa loo soo gudbiyaa suuqa crypto newskiina soo gelinaa 8 August waa shalay maantana waa la soo gelin doonaa hadda aroorbi ay tahay 10 in the morning ay tahay 9 August muuqaalkan duubaya ma garanayo maalmo kadib laga inaad daawatay editinka ay ku xirantahay soo marka saaxiibayaal website-kan isha ku hay update baan soo gelinaa newska maalinle af Soomaali qoraala waa website kaliya Soomaalida cryptocurrency news daily just not kaliya mataqaan news saaxiibayaal aqoon baa soo gudbinaa waa everything oo baahan tahay waxa way suuqaan maalin kasta meel baa dul istaagnaa soo markaas laga faa'iisto dhanka saaxiibayaal hadii aan suuqa BTC waxa meelsa 119 meelsa 829 runtii waxa weeye maalmaha way soo laabatay laakiin last week kale 110 bay joogtay soo marka good entry buu ahaa hoos ka si fiican meesha saaxiibayaal ka banad laakiin iska sug still xataa caadiin markii loo fiiriyo meesha hore ma joogo oo hadda xataa samho discount ku jira laakiin waxa ka sii qurux badan markuu xoog u sii daato sababtoo hadda waa yara cagaar weeye marka iska sug bilahan isha ku haay sida mataqaana beeraleyda kala way saaxiibayaal cryptocurrency dadka beeraleyda way arteen season bay beertaan beeraha xilli baa la beertaa oo tusaale kale roobka intuu diino kale ina mataqaana beertii beeratin ka soo beernayn laakiin saas dareemaya roobka markuu yimaado kadibna siiska soo baxo kale soo marka isku day waa same scenario baa isticmaalsa isku day ina
hadoo kale kriptaha beeratid hadoo kale lacag dadka fasaxay kala way baashaaleen dadka baashaal dadka kriptaha la faa'iidooyinka kala baxay soo marka hada faa'iido kala bixin yes aniga baa dhawey isbuuca waxaan tagay insha Allah talaadada maanta 9 bisha 12 bisha Kenya imaanaya soo marxata xilliga muuqaalka adaawan xayaal ina Kenya laga yaabo hadii idinka ay soo marin soo ilaa iyo sanadka January halkaas Afrika joogi doona halkaas aan u soo badan doona soo marka fasaxayada iyo kriptaha investmentska ee la sameeyay faa'iido baa laga qaataa faa'iidada dabcan waxa way laga tagaa koonka la saaxiib waxa waa Ethereum koonka muuqaal gooni ka sameyn doona Ethereum baa meel fog baa loo wadaa yes Ethereum meel fog baa loo wadaa aad baa loo aroosanaya space ka uu haystaa news ka uu haystaa nakasta waxa la saaxiib albit buu noqonaya caadi maaha performance uu sameeyay 7 days ka fiir hadda 20% uu sameeyay waa koon la mid ma jiro marka la fiiriyo marka kiisa ahaan marka performance weyn uu sameeynaya Ethereum arruso isha ku hay sidoo kale saaxiib XRP waxa mariya 3.3 which is mataqaana okay ilaa business soo kacay talana waa 6.7 talana waa fiican yahay talana waxa ka wada waa 10 mariya good aad buu runtii u fiican yahay meel walba loo wada soo marka all you need waxa way Dogecoin hatta margaara muuqaalka sameeynaya koonkan aad baa taageera miimka ugu horeeyay way la soo saaray way Elon Musk baa mataqaana uu advood karayo soo marka aniga waxa absana markale koonka in la bum gareynayo soo marka asna saaxiibayaal halaga faa'iisto J-Link Zui aad maahan koonka halkan ku jira asna si aad u fiican render runtii waxa way asna eco fiican way koonka la jira saaxiib la dhaw mataqaana virtual protocol halka ugu jeeda laakiin saaxiibayaal waa koon fiican way koonka Zai asna وكون في عوي سو marka saxab galsa u jeedaan ba fursad maalgashi weeyo saddexdan bilqod financial advice ma ahan fiidowga disclaimer ka markasta waxa sheega waa pure educational purpose weeye aqoon ahaan ina ku arintan ka dibgeeya rabaa laakiin aniga tala dhaqaale ma bixiyo this is not financial advice do your own research laakiin xilliyadaas oo kala saqsida aniga beerta taariikhiin marka aan ka baranay these 3 months wali mid aan July aan soo dhaafnay August ugu jiro iyo early September oo kale waa xilliyada suuqa saxab uu daadsan yahay soo dadka mataqaana smart investors ka xilligan bay soo galaan suuqa xilligan bay beertaan koos discount baa ku helaysa qiimo yar baa ku helaysa laakiin xilliyada qurbo qabaha u tahay ama mataqaana waxa ka dambeeya October ilaa bisha saddexaad oo kale waa xilliga suuqa aad loo bungarayo oo faa'iidooyin waaweyn laga laakiin waa ragii hore u soo biirta ama dadka hore u soo biirtay weeye muuqaalka inta saaxiibka ku soo gaweynaya subscribe channelka hadii aad jeceshahay cryptocurrency soo gala koorsooyinka cryptocurrency saaxiibka waa diyaar nambarkan ka dalbo 75 kaliya cryptocurrency scoorka 30 koorso ku jira Galabjir Academy waa school weyn online computerkaaga telefonkaaga baad ku baranaysaa meel kasta joogta ka baranaysaa crypto ana macalinka halkan koorso ka dalbo ama website kan galabjir.com si toos online oo iibso halka ka dahaw casharada waa muuqaalo duuban aad baan saaxiibay in salaamiya ciao ciao